بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada SMCC ama xarunta la talinta caafimaadka Soomaaliyeed. meeshan waxa aad ka helaysaa ama aad kala socon kartaa la talin iyo wacyigelin caafimaad sidoo kale muhiim ah oo ku saabsan cudurrada iyo hababka looga hortago. maanta waxa aan diiradda saareynaa qandhada cudurba mise waa calaamad. haddii aan ku horeyno qandhada marka ugu horeyso waa calaamad sideedaba qandhada waxa ay muujinaysaa in uu cudur jiro. sidoo kale qandhada waxaa la gartaa inay jirka qandho ku jirto marka uu heerkulka ka sare maro 37.6 digrii. sida caadiga ahna heerkulka jirka waxaa laga rabaa 35.5 ilaa 37.5 digrii ayaa laga rabaa. heerkulka jirka bini'aadamkana waxaa lagu cabiraa qalab yar oo loo yaqaano thermometer, waana qalabkan hadda ka muuqda shaashada. waana qalab iska raqiis ah oo qof walba soo gadan karo oo guriga dhigan karo si uu la socdo xaaladda ilmaha marka ay qandho qabato. sidoo kale qandhada waxa ay calaamad u tahay ama ay cadeynaysaa in jirkeena infection uu soo galay, jirkana uu difaac ku jiro. waxaa la yiraahdaa marka qandhadu waxa lagu ogaado in jirka dagaal uu ku jiro ama hab difaaca jirka ay kamid tahay. calaamadaha ka soo muuqda inta jirka qandho ay ku jirto waxaa kamid ah qofka inuu jareeyo, cunno xumo, divid fara badan lagu arko qofka inuu dehydrate noqdo ama fuuqbax uu ku dhaco, hurdo la'aan iyo qarow inuu qof isku darto. waxyaalaha sababa qandhada waxaa kamid ah hirgabka ayaa kamid ah, caabuq qumanka ayaa kamid ah, yani qumanka in ay infection ku dhashaan, tivoga ayaa kamid oo naqaana inta badan, duumada ama malaariyada ayaa kamid ah waa aragta kaduudiyaha sidoo kale waa aragnay, rheumatismada waa aragnay qandho ay leedahay ayadana, cudurrada ku dhaco wadnaha ayadana sidoo kale qofka qandho ayaa ku dhacdo. sidoo kale waxaa la yiraahdaa qaadashada talaalka marka ilmaha la talaalo inta badan hooyooyinku way ka warqabaan qandho ayaa ku timaado. sidoo kale soo bixitaanka ilkaha ugu horeeya ee ilmaha ayagana qandho ay isku arkaan. sidoo kale infectionka dhiigga raaca waa serious, waa kan qandho waliba wuxuu leeyahay aad u badan. haddii ay hooyada qandhato xilliga ay uurka leedahay waxaa dhibaato soo gartaa baa la yiraahdaa ilmaha caloosha ku jiro. ogaalka qofka in uu lumo, yani qofka inuu miirkiisa tago waliba waxaa la yiraahdaa 40 digrii marka ay ka sare marto. qandhada waxa ay qofka ku keeni kartaa dhiig la'aan, dhiigga qofka uu dhamaanayo waayo waxa jirka uu ku jira dagaal xoogan. dhiiggaagana waxa uu sameynayaa circulation fara badan. waxaa la isticmaalayaa marka halihii la isticmaali jiray waqtiga caadiga ahaa wax ka badan ama xaddi ka badan. taasaa waxay keentaa marka hoos u dhac. sidoo kale waxaa dhibaato ka imaadaa dhanka sanbabada ama neefsiga inuu qofka ku adkaado. marka waxaan kusoo gabagabeynaynaa haddii qofka qandho uu isku arko ama caruurta qandho lagu arko in hababka qandho jebinta la isticmaalo oo qofka isla marka qandhada laga jebiyo. taasna insha Allah mawduuca ku xigo ayaan kasoo diyaar doonaa ayada oo daawo la isticmaal sidee qofka qandhada looga jareyn karaa ama looga jebin karaa insha Allah. mahadsanidin janaalkana kusoo biira. maalin wanaagsan.